waa inay go'aan oo macnaha labadan gobol laga dhigo meel macnaha markaas dowlad goboleed u go'san labada gobol inay noqoto laakiin muhiimadeeda waxaa laga rabaa labadan gobol dadka degan inay si toos u midoobaan aragtidooda inay ficnaato sababta ee culeyska macnaha labada gobol iyo wax ka badan markii la yidhi haddii wax ku dhibaad aragtidna hadday go'aan ka gaaraan waana u fududahay inay adoodii ay noqdaan macnaha gobol ismaamulo inay noqdaan sabab aqoontoodana waa leeyihiin population dad ahaanna waa leeyihiin marka la fiiriyo macnaha wareegga quality ahaan dhul beereed iyo bad iyo webina waa leeyihiin marka waa iska filnaan karaan laakiin muhiimadda waxaa waay in loo midoobo waay intaasaan dhihi lahayn mudane maasha allah markaan ku hadlo maarata laba juba iyo maarata center juba laba gobol oo maarata oo mataana ah oo weligooda maarata ay maarata hal yani maarata khad ay wadaagi jireen markii horena maarata hal gobol isla ahaan jireen haddana yani maarata laba gobol kala laga jubbada dhexe jubbada hoose waa laba gobol mataana ah tan ka labaad labadaas gobol iskaashi oo dhexeeya yani maarata dhaqan oo dhexeeya يعني مارتا هولكلا ودهيا marka gobol oo maarta maanta yani wixii adduunka oo maarta gobolada jiraan waxyaalaha oo dabiici oo ilaahay nasiya jiraan marka oo leedahay marka hore yani khadku maraa yani tuulada yiraahdo ama tuulada yiraahdo maarta Zamboni tarkiyo maraa yani dhulkaas yani waxyaalaha ka baxana waa shay aad maarta u qaali badan waay dowladda aad u fiican tahay dowlad beereedka aad u fiican yahay ay maarta dhinaca maarta biyaha يعني لو واهلان بيو عطوين واهلان بيو روبتنا واهلان سنة كسر رب واهلان بيو واهلان وعمل ما اعتبر وصارنا مركز إلهي نام برادو وعن يعني ما اعت إلهي بتوه مركز إن إلهي نبض عام أو نسيو لو ذا زكوان يعني إن ما اعت متهم وان إن ما اعت حد وان متهم مركز إن ما اعت الناس إن ما اعت إلهي ما اعت بقوليهم يعني جالنا إلهي نام برادو تنكلوات labadaas gobol sidii oo nidaamka ama qaanuunka oo maarta oo dhigay federaalka haday raad yani maarta ay midaysiin haday rabaan maarta waa kala bax karaan haday kala bax karaan haday rabaan waa kala bax karaan goon waa istaa karaan ma fahamtay nidaamka oo maarta ama sistemka oo maarta federaalka asaasa dhiga marka insha Allah yani maarta markaan yiraahdo waxa weey labadaas gobol yani maarta labada gobol maarta Soomaali oo wadnaheeda ah way marka labada gobol oo maarta wax soo saarka Soomaali oo maanta yani maarta ay ku dhaaratay labadaas gobol waa ilaahay mahadiis yani maarta aad u mahadsantahay okay marka maadaama labadaas gobol ay yihiin labada gobol hadda oo Jubbaland isku yiraahdo oo guud ahaan hadda 3 gobol waaye oo ka dhisan maamul goboleed oo Jubbaland dadka ugu badan maxaa la yiraahdaa maamulkaasna oo deegaankaas xaq u lahaayeen waxay si rasmi ah u degaan labadaas jubba mana ku lahan maxaa la yiraahdaa xuquuqdii rasmiga ah ee maamulka hadda dhisan marka bulshada ka soo jeeda deegaankaas gudaha iyo dibadda waxyaabaha u sheegi kartaan in ay hadeertaan maadaama ay hadii naqshadaas la diyaariyay oo laba gobol isku daray oo maamul goboleed noqon kara macnaheedu waxa waa dadkii oo meeshaas laga dulmay maamulka hadda dhisan ee rabaan inay dhistaan maamul laba gobol ka kooban marka ma laga dhaadhiciyo marka dadka oo maxaa la yiraahdaa deegaa jubbooyinka labadaas gobol ka soo jeeda ileen markii la dhisay waxay u baahan tahay dhaqaale aad u fara badan ay loo baahan yahay iyo midnimo loo baahan yahay marka ma la mideeyay ma lagu jira taladiisa in la raadiyo dhaqaale ku filan hadii ay xuquuqdooda maamulka hadda dhisan ay ka waayaan inay go'aankaas gaari karaan u baahneen taageero kale ay ayaga isku filan yihiin ma la gaarsiiyay marka horta maanta Soomaaliya labadii gobol oo wax soo saarka ugu fiican waa labadaas gobol haddii hasi ahaato dadkooda waa la kala qaybiyey nin kastaba waxba loo sheegay runtii laakiin ilaahay waxaan ku tuugaynaa inaan walaalahayna qalbigooda soo dumiyo hal meel ka soo wada jeesano runtii
إن حل ملك سودا جيش هدي حل ملك سودا جيش إنه إتون توجد لا أبورت المجرد إتون توجد لا أبورت المجرد هي الإهاب وحواي ديارنا يرندي لكن وحن كنت ذالينا ومتنا waa midda su-aashaas aan ku celina mar kale maadaama aad tihiin dadka oo loogu seexdo xagga siyaasadda iyo xagga dhaqanka oo micnaha wixii dadkaas lagu badbaadin lahaa dadka lagu jiifa ayaa tihiin haddaba marka ma sameyseen istaraatiijig iyo nidaam iyo siyaasad kasta oo markaas lagu mideyn karo barnaamijkaas la gaarsiiyey oo og yihiin in micnaha howshaas markii la gaaro oo laga waayo maamulka hadda dhisan in micnaha go-aankay kaasay tahay mala gaarsiiyey waay micnaha okay waa su-aal aada u kulul waaye taas maxamedo waxaan ku leeyahay process baa socda oo macnaha gudaha iyo bannaankaba processkaasna ah nidaamka hadda aad sheegtay waaye annaga runtii culeyska hadda macnaha oo sheegtayo macnaha labada gobol oo dadkoodii inay macnaha horta fahmaan faa'iidada ay leeyihiin macnaha in la sameeyo dowlad goboleed oo nabad leh oo markaas macnaha oo ayaga ka kooban xaqoodan ay ka helayaan marka hore inay fahmaan waaye waxaan u sameynay guddi badan oo macnaha maanta oo macnaha oo banaamaha jiraan sida Mareykanka Canada iyo waxyaalo badan oo u sheegaya marka in labadan gobol oo ama saddexdan gobol hadda xaqayna macnaha nugu lumay inaan hadhowdiisaan haddii arrintaa isku bedesho inaan labadan gobol aan ku midoowno guddi aan u sameynay oo hadda processkiisa socdo waxaan u malaynaynaa mustaqbalkii haddii arrinta isaan ku socoto inaan labadan gobol inay macnaha ay midoobi doonaan process baa noo socda guddiyaal baa maqan gudaha iyo banaankana ka shaqeynayo marka arrinta waxay u dhowdahay inay fahmaan inaan labadan gobol macnaha inaan ku go'no sabab bahay badanaa jirto oo annaga dhankayna okay horta bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u malaynaa barnaamijyada hadda aad ku dhawaajiseen in ay yihiin wax hore loo soo dejiyo sidaa meesha kalendar maapka aad u jeedin arrintaas waxaa waaye 15 September 2015 ayaa qaabkaas la dhigay maantana waxaan joognaa December 2020 marka faraqa u dhaxeeya waa dareemi kartaa howshaas howl socoto waaye sidaas sheegteen waa howl oo si munaasab ah u socdo laakiin ilaahay wuxuu maadaamaanu nahay dad muslina waxaan aaminsanahay wax kastaba waxay dhacayaan maalintii rabbigii uu u qoondeeyay inay dhacdo laakiin rag badan aqoon-yahana rag badan oo haweeney rag bale culamaa u diin iyo siyaasiyiinba barnaamijkaas way wadaan waana socdaan waxaan u malaynaa inaysan waqtigii sidaas la sameyn lahaa ama banaanka usoo bixi lahaa inuusan dheereen sidai idinkaba hore u adeyseen marka proceskaas xilligaas ayaa maskaxda kusoo dhaaday markaan aragnay uleysyo badan markaan aragnay xaqiraad badan maamulada la dhisaya badanaaba dadka labada juba kasoo jeedaan waa lagu yareeyaa si fiican looma xuso waxaan moodaa in si gaara beelo gaara in iyaga markaas isku siinaya inay yihiin marka dhulkaas inay leeyihiin marka barnaamijkaas waa barnaamij socdo waxaanan jecelnahay haddii ilaahay yiraahdo in labadaas gobol ugu dambeynta iyagana maamul u gaara ay samaysan doonaan ummadda oo labadaas gobol ku degan iyagoo midaysan oo walaala ah qaraaba ah gacmaha isqabsan doonaan markaaseeto maxaa la yiraahdaa difaacan doona dhulkoodii iyo xuquuqdoodii insha allahu tacaala haddii ilaahay yiraahdo laakiin howshaas waa howl socoto waaye sidaas ayaad ogaanaysin haddii maanta ayaan beriba ii soo baxay aysan
lala yaabin oo diyaar u diyaar u diyaar garoow insha allah waa socota insha allahu tacaala marka intaas ayaan idin sheegaya waa ku mahadsantahay farintaada annagana waa macnaha arrimahaas waa taageerina ilaaha qolkiisa waxaan sugaynaa inuu soo degdego waxaan ka darsanayaa aqoon-yahanta sooriyaasha oo banaanka jiraan ina aqoontood banaanka la joogaan maaha runtii ina aqoontood hadood ila soo galaan dhalinyarada soo kooyaan ina wax u sheegaan runtii ilaa haddii aqoontaad aga banaanka la joogto ilmihiin inta joog haddii waa ogaansan maxna ma timad dhibkeedoo leedahay aqoontan banaanka la jiro waxaa la raba inaad gudaha lala soo galo dadka wax loo sheego ayaa loo baahan okay macnaha ugaas sabdiid macnaha waa aad u mahadsan tahay marka hore waxaan kuu sheegaa professor marka qofka la leeyahay oo gurigiisa fadhiyo oo gurigiisa waxba qorin ama jaamadaha tegin horta kaas professor ma aha waxa waaye macnaha professorna lama dhihi karo professorka waxaa la rabaa in jaamacad lagu arko ama iskuulaad lagu arko la arko inuu wax dhigaayo midda kale waxaa waaye engineer waxa waaye haddii aad engineer tahay ama jaamacad kusoo dhamaysatay inaad wax dhisid waxaa kaloo maanta number 4 kuwa fadhiyaan oo macalgada haysto macnaha oo dhisaayo guryaasha dabaqa saarayana kalo runtii waxaan u sheegaynaa dadka wax bartay professoraadka oo banaanka jiraan runtii waxaan leeyahay waqtiyadii laydinku talagalay inaad wax qabataan waa lasoo dhaafay saab odayaalaad tihiin waxaan la rabaa dadka hadda soo koray siyaasiyiinta ah inaad macnaha kaalin weyn ka geystaan wax ku sheegtaan ninka aqoon leeyahay waya ani siyaasadda ma geli kara laakiin waxbarashaan ayaan dhinacooda kaalmeyn karaa war jaamacadooy iyo waxyaalaha noqonaya macnaha ka kaamil noqo oo kaali wax bar dadka ama ma aha buugaag nin professor ah soo saaraya taariikhda dhulkeeni iyo dadkeeni oo hadda dhunsan professoradeeni oo ay dhasheen dhulkaas inay soo saaraan hadda dadka qaar waxa waaye dadkeeni odayaasheeni ayaaba la leeyahay waxay u dhasheen midna tunyaa lagu sheegoyaa midna waxaa lagu sheegaya ugaadina lagu sheegaya waa la kala qaybsaday dadka professor oo hadda buug soo saaray oo annaga ah ma haysano haddii uu leeyahayna professornimadiisa waa qarsaday waa mahadsantihiin doodiina su-aasha kama dambeyska aan idin weydiinayo ku saabsan isla statekan la sameynayo sidaa ku talagasheen waxaa ku talagasheen in micnaha mustaqbalka inuu goordhow lasoo shaacin doono oo micnaha arrintan lasoo bandhigi doono ummadda loosoo bandhigi doono ka hor marka maadaama hadda maamulkaas hadda jira marka oo dhibaatadaas ay ka taagan tahay ma loo digay dowladda iyo intaba macnaha stakeholderska ah in haddii ay ka waayaan maxaa la yidhaahdaa dadka deegaanka ah xuquuqdooda inay samaysan doonaan maamul noocaas ah shirweyne oo sidaas loogu dhawaaqayo hore ma samayseen ma ku tala jirtaan mise horaa u samayseen shirweyse oo si rasmi ah loogu dhawaaqayo laleeyahay annaga xuquuqdeena saasi saasaan leenahay haddii taas aan waayno waxaan qabanaynaa ama statekaas oo noocaas la magac baxday ayaan ku dhawaaqaynaa saasaan sameynayna shirweyne noocaas ah ma la qabtay mise waa lagu tala jiraa bismillahi rahmaan rahiim horta oo markii oo maamul la dhisaayo qasab maaha in dadka kale ila loo sheego oo marka cid oo markaas gaar ah oo laga amar qaadanayo ma jiro anaga waxaan ku sheegnay sharciga ayaaba qoraya 2 gobol wixii ka badan inay samaysan karaan maamul goboleed dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ku qoran haddaaba jiroba hal gobol bar inay maamul u samaysato kaas ma faragelinayno aniga teeniaan ka hadlaynaa marka maadaama 2 gobol aniga isleenahay dadka meesha degan 2 gobol ay yihiin inta badan peaceful dad oo markaas aanay rabsho jirin waxaan isleenahay qasab maaha in oo afti ama gobollo kale la weydiiyo ama meel kale laga weydiiyo waxay ku xiran tahay hadba dadka deegaanka sida ayaga u arkaan ay ku heshiiyaan dantooda u arkaan ayay ku xiran tahay maalintii oo sidaas ay iskugu raacaanna waa lagu qasban yahay in oo maxaa la yidhaahdaa waxooda sida ay yihiin loo fuliyo marka taas fikirkaas horta in laga bixiyo in yani dadka afti dadka deegaanka aan ahayn afti la weydiiyo aftida waxay ku xiran tahay
ummadda labada gobol degan inay midoobaan igu arkaan markaaseeto inay tan ugu jirto sharcigana u qabo labadaas gobol inay maxaa la yidhahda maamul ay samaystaan taasna ayay ku xirantaha ma ogi ma xirna afti kale qof kale la weydiiyo qof kale la weydiiyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu barnaamijkeena halkaasuu ku dhan yahay